xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan Nuur oo maanta halkan kula hadlay qayb ka mid ah warbaahinta ayaa ka hadlay inay fulin doonaan go'aankii ay dhawaan soo saareen golaha deegaanka degmada Burco kaas oo ay ku ansixiyeen kalfadhigoodii 27aad ay ku yeeshaan halkan oo dawladda hoose degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan Nuur ayaa fariintii ugu dambeysay u diray shacab weynaha reer Togdheer waxaanu dadweynaha reer Burco maanta halkan mar labaad iyo mar saddexaad baan ugu celinaynaa kalfadhigii ugu dambeeyay golaha deegaanka ee ahaa bisha Oktoobar biri insha Allah taala kooda tahay in dhammaan xoolaha magaalada Burco aan lagu arki karin waqtigii golaha deegaanku ansixiyay la iclaamiyay berita yahay waxaanu ku celcelinaynaa oo dadweynaha iyaga u sheegaynaa reer Burco in berita hadii alla ka dhigo bisha Oktoobar kooda tahay dhammaan xoolaha nool magaalada Burco sidan hore u sheegnay horta loodayada laga saaro oo aan laguba arag lo day habeen tahay iyo haday maalin tahay toona arigana sidii aan hore u sheegnay isagu waxa weeye in nidaamkii hore maadaama gobolka Togdheer dad badani ay ku tiirsan yihiin oo ay ku nool yihiin وين حولها أرجع إيجا سيدي راعي لو راعي شري تذكي راعي شري الصبحي مقالة ذاك راعي كحين شري مغارب تنسوه هون شري يعني أرجع يوم مقالة إسبار كشرين ندم كيسي سجنا حد يلا كده بريل لقى بلعبه إن الله سمايو ونوف كحولها أنا بريكو أرجنا السوقة إن لو رجعي أو نوف كاسبون يهي تدوينها واقو أتكيننا واقو علينا بريته هدي الله كدقو ولله بلادنا بانو قادينا neef xoolaha suuqa kuma arki karo madaxdeennii Burco waa aragteen laamiyadii si fool xun bay xoolaha u daadsay oo ay u dhex fadhiyaan shaariciyadii u joogaan oo suuqyadii u joogaan marka waxaanu leenahay xooluhu waa xoolaheennii laakiin xoolihii magaaladii way la kala duwan nidaamkooda geesta kale Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan Nuur xogayaha fulinta dawladda hoose waxa uu ka hadlay dhaliilay u soo jeediyay bulshada reer Togdheer taasoo ku salaysan inaan golaha deegaanka degmada Burco haynin dhul dan guud ah taasoo loogu talagalay xoolo daaqsimeedka baahiya iyo sidoo kale baahiyaadka asaasiga dhulka danta guud horta anaga naloo keena sidiisaba hadaa maqashaan dhul dan guud oo la keeno boqolkiiba 10 ama wax ka yar baan ka qaadnaa saldhigii booliis baan ka dhisnaa oo wax hadaan la arko MCH aanu ka dhisnaa oo goobo caafimaad waa wax hadaan la arko masaajidadaanu siinaa waa wax hadaan la arko malcaamadaha ama madrasada yaryar baan siinaa waa wax hadaan la arko iskuulaha laga dhisaa waa wax hadaan la arko danta guud anagu kuma takrifalo meel kale lama geeyno wixii dadku noo keenaan ee beer survey aanu ka saaro sifaha danta guud ee sharcigu qoraya ayaan marinaa guntiye gunaanadkii Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan oo xogayaha fulinta dawladda hoose waxa uu ka hadlay shimbiro la sheegay in dadka cunayaan kuwaasi oo ku soo badanaya guud ahaan gobolka Togdheer isagoo arintaas ugu baaqay shaqo weynaha reer Togdheer inaan wax kasta oo samada duul aan la dinin laakiinse buu yiri lala soo socodsiyo laamaha ay shaqadeeda tahay waxaan shimbirkan ama shimbirtan gorgorka leeyahay waxbay cunayaan waa imtixaanaadkan bay kamid tahay imtixaanaadka aayaadka Ilaahay bay horta kamid tahay qof fasili kara ma jiro waa aayaadka Ilaahay anagu laakiin dadka waxaan ku wacyi gelinaynaa wixii noocaas la arkayna soo sheegan wuxuu asaasay wax dulinkee wax cunaya waa cadow waa laga qabanaya dadka waa talaaba laga qaaday dadku soo sheegan dadka salaftooda waxaan ku wacyi gelinaynaa waxa la leeyahay tukihii baa la tooganaya oo xuunshadii baa la tooganaya oo xuurtii baa la tooganaya oo shimbirihii baa weerar lagu qaado wixii duula cirka maraya hadii la iska laayo waa dhibaato taana waxaan leenahay dadka waa ka wacyi gelaa laga daayo shimbiruhu waxay ka mid yihiin nicmoolgeeda Ilaahayna siiyay waa wax lagu faano laakiin wixii dulina wax cunaya waa talaaba la dilaya iyaguna waxaan leenahay dadka soo sheegaan maqalkana soo gaaraya faraha badanna waa waxaan idin sheegay shimbir kasto cirka maraysa waa la tuganaya taana dadka waa ka wacyi gelinaa laga daayo Axmed Jaamacadda Axmed Gure telefishinka qaranka Soomaaliland Burco